ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قاد كرنتي دد فر بدن با ka waramay dhaqaatiir ba ka sheekaysay culumma ka warantay aqoon-yahano ama horjoogayaal muassasaad tacliimiya ayaa ka waramay. waxaad moodaa aniga runtii wax badan iima harin. waxaan rabaa equation ama isleeg aan ku fiiriyay bulshada aan ka dhashay ee Soomaali la yiraahdo ee hanta wilifka ah. isleegtaas waxay leedahay qabyaalad lagu dhuftay qori lagu daray qax loo qaybiyay qaad waxay la egtaa qaran la'aan. runtii markaan saas leeyahay ku soo celi baa la yiri mar labaad baan ku celinayaa isleegta. waxaan idhi qabyaalad lagu dhuftay qori lagu daray qax loo qaybiyay qaad waxay la eg tahay qaran la'aan. marka la leeyahay celina ku soo celiyo runtii waxaan idhi qabyaalad lagu dhuftay qori lagu daray qax loo qaybiyay qaad waxay la eg tahay qaran la'aan. runtii markaan isla egtaa sameynayay dareen baa iga keenay iskama oran. waxyaabaha laga sheekeeyay waxa ka mid ahaa dhaqaalaha si uu burburiyo. hadday waxaan aad uga helay runtii Professor Farax doctorka markuu ka waramayay oo uu isu barbar dhigay miisaaniyadda dalka maamul goboleedyada marka laga reebo kuwa cusub hadda dhashay caanka ah iyo dawladda federaalka iyo qaadka waxaynu ka baxa oo aynu minus galnay 2008 iyo 7 maaqan maray ahayd maraan daraasad ka sameeyay oo aan darsi ku lahaa nadawaad lagu qabtay Boosaaso Garowe Qardho Gaalkacyo aan halka muxaadaro qaadka ka galay. Boosaaso kaliya waagaas waxa laga cuni jiray $60,000 oo qaad. marka aad u tagay ragii wasaaradda maaliyadda oo dekada joogayna waxay dhaheen dekada $1,800,000 baa soo gala. marka ismaanjaato waxa la yiraahdo waa iscunaysaa $1,800,000 dekada ka soo xarata $1,800,000na Boosaaso kaliya ku qayli jirtay. arrinta waqtiga waxaan rabaa iyadana bal si xisaaba inaan idin ku sheego. arrinta waqtiga yani waqtigu waa muhiim. waxa la dhahaa fadhiga qaylaadu wuxuu qaataa 4 ilaa 6 saacadood. 4 ilaa 6 saacadood ayuu fadhiga qaadku u qaataa. haddaynu niraana 4 saacadood waxa qofka kaliya sanadkii ka dhumaya 825 saacadood. haddaynu niraana 6 saac weeyana waxa qofka ka dhumaya 2190 saacadood. ku dhufo inta dad oo qaysha waxa ku soo baxaya inta waqti aan ku lubino bahalka isaga. sidaa daraadeed ayaa nin siyaasi oo Mareykan wuxuu yiri waxaanu haysanaa awood ka xoog badan nuclearka oo ah aan adduunka ku xukumi doono. awooddaasna wuxuu ku sheegay inay tahay al-amn al-ghidaa'i. haddii baab al-mandab la xiro ila dawladda xoog la jira baab al-mandab haddii la xiro innaga Soomaaliya maxaan cunaynaa balaan isweydiino. bariis miyaa soo saarnaa? bariis ma beernaa? gallayna ku filan ma beernaa? wuxuu baa koonfur laga beeraa may. digir ma beernaa may. carruurteena digirta iyo gallayda maba cunaanba reer baadiina bay arkaa digirta iyo gallayda in la cuno. laakiin mar dambaad garan doontaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. sidaa daraadeed dawladaha ihsaa'iyaad kale sida Yemen oo kale oo qaadka beerta. Yemen waxaa la yiraahdaa 50% biyaheeda qaadka lagu waraabiyaa. 1994 albanki dawli wuxuu Yemen uga digay inay qaadka joojiso beeridiisa sababtoo ah waxay yiraahdeen biyo la'aan baa idinku soo socda oo amnigiina biyuhu wuxuu ku jiraa khatar. waxa kaaga sii daran waa dhulkii barakaysnaa oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina ila sham tayada noo barakee Yemen tayada noo barakee. dhulkii baa qiiq ka kacaya qaad daraadiis. sidaa daraadeed أنا waxaan ku soo koobayaa suugayahankii Soomaaliyeed reega ugaas baa waxa la yiraahdaa gabayga baarkiisa iskala Soomaalida. reega ugaas nin ilmuhu ahaa inuu ilbax ahaa waxaan ku garanayaa tixdaan hadda aan baydad idin ka soo qaadi doono. Soomaalidu ari iyo geel fara badan iyo lo bay leedahay
shimbiraha iyo digaaga inay cunaan ma jeclay marka wuxuu yiri wala jiir shimbir laga gooyay baan ani la ii jeexin yani hilib shimbir laga soo gooyay baan ani la ii jeexin oo la isiin wala jaad aan cunay baan ilkaha iga jaraaxin jaad aan cunay hadda weydii arkay afki foosha xumaa oo ilkii jajabnaa iyo kuwa mid madow bariis aad moodo iyo markii kansarka uu soo badalana kaba sii daran marka wuxuu yiri wala jaad aan cunay scientist aha baan ilkaha iga jaraaxaynin wuxuu ku ogaaday dhaqanka qaar ya ismaa yuusuf wuxuu yiri bushumahayga uma quuri karo guuri iyo jaad bushumahayga uma quuri karo guuri iyo jaad salaadaha bilaash ugama tago ama sabaashaan baalada ma fiirsado inta baar jiraaf tago yani wuxuu tilmaamo wiilkiisii oo dhoofayu toos buu tilmaamay wuxuu u tilmaamay waxyaabaha xun waxa kamid ah buuriga iyo jaadka waa kan marka ku soo gabagabeynaya wal ninba barti aabihi maray buu budulki raacay basarkaygu waa ka hadaad baran siciido marka jaadku inuu xun yahay xataa suugaanyahankeenu waa yaqaaneen abshir bacadla de ugu dambeeyay oo waa kan aadka uga sheekeeyay ya yani iska qaada qaadana ha bixin qaado adiga leh ragoo quusta dumarkoo qawada qaado adiga leh ya qalbi qooqan qoora wax tarin qaado adiga leh haqa jilin qayrka shaxaad qaado adiga leh qofku shaxaadka waxaan aad uga naxay maalin baan oo meel maraya baanin iimi markaasuu yani sidii nin garanaya war fuwaad iska waran nabad baan markaasuu ma maqasho arintayda ma ibaan ma maqal ana ninka ma garanayaba markaasuu wuxuu yiri ma intaasaan isu jirnaa si arintayda u maqli weyday dareenkaygu buu soo jiitay dabeetana wuxuu yiri ma maqal miya in baadiyaha xaaskii iyo laba wiil igaga gubteen oo ay dhinteen aniga markiiba qalbigayga soo dhacay markaasaan waxaan idhi ninkaas oo kale waxa jeebka ku haysa ma siin kartid waxa riyo marka bariyaha inoo ahaato bariyaas imaano ma sugu karo yiri bari dukaanka waxay gaareen dukaankii baan geeyay raashin iyo lacag baan kaga reebay markaan ka soo baxay baa nin kale ay qabtay wuxuu igu yiri ma wuxuu ku yiri caruur iyo islaantii baa iga gubtay waligiiba ma guursan buu yiri wax ku qaylo qaba yani waxa arkaysaa qofka qiimihiisa intuu leeg yahay ugu dambayn anigu runtii dawladda qaadka hal la joojiyo illa joojiyo u baahanahay laakiin hadde waxa weeye umalayn maayo waa Dr. Ahmed Haji rahmatullah alayhi baan ka bartay Allah aqbal Allah ajiibo waa rajaynayna insha Allah ta'ala inaan ku guuleysano inaan joojino laakiin talaabooyin fiican la sheeg hadda anigu East Africa joogi jiray Kenya iyo Tanzania iyo Uganda iyo meelaha khamriga lagu cabo waxa lagu qoraa Swahili baada ya kazi يعني افتر عمل افتر محاكله بعد العمل شقدك بعد يعني مركز شقدك بحديد خمري قعد دوله بنتلان ما لغه هلي كرا دوله فدرالك ما لغه هلي كرا maamulada Soomaaliya ka jira ma laga heli kara inay dhahaan xilliga shaqada lama qayili karo askari shaqo ku jira ma qayili karo qof shaqo ku jira ma qayili karo ya ma la yeeli kara waa talaabo fiican hadii la qaado kuwii la sheegay in meesha laga saaro in cashuurta lagu kordhiyo in meel gaar la geeyo waa talooyinka iyaguna aad ka u fiican Abuukar Cawaale ilaahay khayr hasi runtii waxaan dhigi karaa waa nin halgamaa waa nin haliyay waa nin dhexda u soo xirtay shaqo adag wuxuu mudan yahay in la bogaadiyo waxaa jira qaar qaadka jecel oo la diriraya kuwa aan qaadkaba jeclayn oo iska ragrif jira muxuu Cawaale magac u yeeshay buu la diriraya ragrif baa leeyahay kaasuna waa jiraayo waxbuu ka sheegaya ana waxa soo dhan dhabarka ha u godi waxa soo dhan dhabarka ha u godi ninkii reer galbeed Soomaalida galbeedka degtaa geela dadka u jecel wuxuu yiri badda jiiraya iyo bariga jaanta mariyaaba wala geel jacaylkaan u qabo waan jirabi uunka wala geel jacaylkaan u qabo waan jirabi uunka qaad joojin jacaylkaad u qabtid jarrib uunka shalay waan jecel isticmaalay wuxuu yiri ninkii ilaahay qaadka ku saliday baan aad baan u jecel runtii ya xalay baan Facebook ku qoray inuu sidaa isku carifay oo uu yiri waxaan ahay ma ogtahay baan Abuukar Cawaale inuu yahay haliyay isu taagay ummadan inuu badbaadiyo inta ku maashaysan qaadka ya ma soo ogtahay inuu isku taariifiyay ama naftiisa dadka ku baray inuu yahay ninkii ilaahay qaadka ku saliday ugu dambayn waxaan leeyahay kulligeen waa inaan u weel qaadnaa waa inaan u istaagnaa
وإنا فافلنا مثلا هذا قبل فربنا هل كان فديا يا هذا قبل تراهو أصلا كم أغلى شري إني قبل تراهو نقاط عنا يمجيو هذا قبل يقول هذا رجع إلى بقاش يسكتيني من نن الله مع ذلك كمار ما جرى كمان نن كمار ما مجرى مركا هذا قبل تهان من قيلا يمجيو ده ولا بس كون يا بحال يا هذا اللي يرى له بحال كيودو waxaan ku soo gabagabeynaya arinta dhaqaalaha ku noqonaya shalay waxaan weydiinay qayla waxaan iri qaadka meeqa lagu qaataa lacagtiisa meeqa waa $25 $25 haye maxaa lagu daraya coca cola rabaa ama 7 up wuxuu rabaa biyo wuxuu rabaa shaah nooc kale oo kay nucabna aan ahayn oo kala kala leh gabar baa meel goglayso oo kulay meel khayr maaha waa meel buusha boosaasa xilliga markaad u fiirsato kulaylaha waxaa arkaysa iyadoo buushashkii la fadhiyo barkintu waxa la igu yiri ama waa ciid ama waa faarad yani alwaax marka la raandeeyo waa nooc ciqaabka marka la isku soo daro $30 buu tagayaa $5 oo kale oo naashnaasha baa raacaysa macbiir raacidkiisa $30 يعني $900 way bishii qofkay bay soo gashaa billahi calaykum raga sharikadaha ka shaqeeya raga dawladaha ka shaqeeya gudoomiyaha gobolka ayaa fadhiya ما هو مالنا بدوري أقول كحتى مشاركة $900 مركا نبيه وحين كجرنا مجدي واللوميناي ومركا كواد ودعي سنة يسنا إلهنا بدبادي إله الصومالي قاد كم دوبه إله قبيلة كم دوبه إله قرية كم دوبه إله قاحة كم دوبه إله أمد قرن أو أمدا أو مديسر إله كم دي أبوك العوالة الدنيا آخرة الله بقوله السجى يرجع الله شقينا يا وحلا يا برواقي يقول بهاي دي كوب بوري والله سبحانه وتعالى